hadda waxaa dhacay waxaan caadi ahayn oo xawli baa dhacay ummadihii la xaqirayey oo la gumaysanayey oo ay u weyn yihiin ummadahan oromada ayaa moodaa inay si fiican usoo laba kaclayeen laba kacleyntan oromada ay awoodda u heshay ay ka hortagtay systemkii jiray markii hore oo semitiga ahaa tigray amaara iska ahaa weli marka dambe tigray kale iska ahaa oo waddankii aad u duleeyey iskama imaan waxay ku imaatay dagaaladii xamar lagu jebiyey ciidamada etoobiyaanka dagaaladii etoobiya gudaheeda gobolka soomaalida oo aana lafta ay ku jebisay ciidamada etoobiya si xun loo jebiyey dhibaatooyin kaloo haddana gaalkii imaatay oo ahayd in soomaalida marka dambe iyaga laisku dilo oo talisiira la hagaajiyey nin aan marnaba naxariisanayn gacanta loo geliy cabdiile in la yidhaahdo oo ummaddii markaa si xun uu gumaday waxyaabahaas iyo wax la halmaado unbuu kacdoonkan oromadana iyo amxaarada uu ka bilowday cadaadintiina way ku jirtaa meeshii laakiin calool adeega ay qowmiyadahaas ku kaceen oo kaga hortageen dowladda etoobiya waxay nidaam mar kastaba ninka dowladda haysta monopoly of fire power u haysto oo xudoona suudoona dadka u laynayo oo laga cabsan jiray marka meelesna taasuu dadka ku haystay markii hore laakiin dagaaladii iyo dhaqdhaqaaqii soomaalida ay ku samaysay jamhuuriyadda markii xoog lagu qabsaday iyo waddanka gudihiisa iyadana waana nafta ay ka fulisay waxyaabahaasaa soo jilciyey oo si fiican dhulka u soo dhigay nimanka tigreeda mar hadduu qofkii uu laciifay qolo kasta markaa way kacday iyadana waxay dhaheen soomaalidan ka liidanaa horta taasaa maanta keentay marka guushan soomaaliya ayaa halbowle ka centerpiece-ka waa soomaaliya marka in guushii horta la manage garayna way u baahan tahay dhibaatooyinkii ay tigreeda beereen oo soomaali iyo soomaali dhexdooda ay ka beereen ay ku hagaajiyeen nidaam gobol ahoo dadka baabi'iyey oo si u baabi'iyey weligeed etoobiya u baabi'inin iyadana meeshii xal in loo helay weeyaan marka waxaan aaminsanahay mar haddii cabdiiley xal loo helay waayo wuxuu ahaa nin aan naxariisanaynin aanan cid kale ka dan lahayn waxaanan ka hayn nimankii tigreed ahaa asaga iyo xukunkaa uu ku ilaashaday meesha ummaddana si xun u gumaaday si xun u jaray si xun dadka waxay ku leeyihiin 60,000 ilaa 70,000 inta u dhaxaysa yuu laayay oo baabi'iyey waa tiro aad u fara badan laakiin haatan maadaama uu ka baxay meeshii dhibaato kaloo fara badan oo asaga uuna beerayna meeshii way jirtaa ilaa oromo iyo soomaali 100 sano wada noolaayeen weliba dhexdooda dhib kama dhicin dhibkan dambe mid ay tigreedii asaga isla beereen buu ahaa oromada way ku duuleen soomaalida hubka ka qaadeen marka oromadina way soo dishay soomaalida way laaysi ilaa wax iska celiyaan ma hayaan waxyaabo badan baa iska jira marka haatan mase waa la kala dhexgeli mase nin kasta wuxuu isku difaacay uu raadsan meel uu ka raadsadaba marka wax ay ka qaadi karto oromo iyada qabiil ahaan uga qaadi karaan soomaaliya uga qaadi karaan soomaalidii maxay ahayd etoobiya hadda ka tirsaneyd ma jirto bal waxaan aaminsanahay maadaama labada dhinacba dad la soo gumaystay oo la soo xaqiray ay yihiin inay ka gudbi karaan marxaladan maanta ay heshiin karaan oo la wada noolaan kara si fiican oo mid kasta xaqiisa uu soo bixi karo wax meesha looga saaray mid ama wax meesha looga saaray ummadii Soomaaliyeed oo ku noolada meesha oo dhaqdhaqaaq dimuqraasiyad sameyn rabeen oo online maalin kasta oo dhanba u diiday oo kacdoon ka dhacay magaalooyinka oo dhanba ayaa dhaheen loo keenay ciidamada federaal maxaa ciidamadii sli police-na waa niman ku soomameen dilka Soomaalida dhiigga Soomaalida la daadinay yay 10 sano ay ku mashquulsanayeen marka cabsida yani aniga laga qaadi karo meesha laga qaadana meesha waa inay burburta bay ahayd mooyee meeshan hadda loo saarayo oo waxay isku qabteen taa waxba kama jiro